haatan war degdega magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose caawa waxaa lagu dilay nabadoon caan ka ahaa magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose wararka inuu ka helay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in mid kamid ah nabadoonada sida weyn looga yaqaan magaalada Kismaayo kooxo hubeysan ay ku dileen meesha lagu magacaabo Dalcadda ee magaalada Kismaayo xilli uu ka soo baxay masaajid ku yaala xaafadda Dalcadda la yiraahdo ee magaalada Kismaayo waxaana warku inta uu ku darayaa in markii nabadoonka uu ka soo baxay masaajidka maqribka uu ku soo tukaday ilaa hore masaajidka ay ku dileen magaciisa iyo wixii kale warar ku soo kordhana wararkeena dambe ayaa kala socon doontaan haddii Allah idmo.